gabar buu ku guursaday gabadha uu guursaday wuu xumeeyay magicii markaas loo yaqaanay oo uu bedelay oo Sufyaan ku bedelay ayuu haddana San Diego waxa looga yaqaanay ninka taakeeya looga yaqaanay beenta Ilaah baa caayay Ilaah baana dadka yiri cadaab baan u doortay beenta ku sheekeeya subaxii hadduu nin arko waxa leeyahay war hebelow war islaantii uur ma leedahay Soomaali sir ma kala qarsato waxna ma kala qarsadaan haddaan xoogaa calooshu 9 bilood tahay oo xoogaa calooshu fakatay waxay leedahay abaayo uur miyaa leedahay meeqa bilood baa tahay ugu dambayn xaaskii hore ee taakeeyow afka furatay soona bandhigtay sira muddo badan qarsanaa oo aysan dadku waxba ku ogeyn haddaba gabadhan oo iska soo duubtay muuqaal ayaa soo dhigtay baraha bulshada waxaana la soo wadaagay qaybo kamid ah asxaabta inagu xiran haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin waxyaabaha siraha oo ay kashiftay iyo sidoo kale noloshii iyada iyo taakeeyo soo dhex martay fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u faafo bulshooyinka Soomaaliyeedna u gaaro ayna u ogaadaan xog badan oo ka dahsooneyd sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelkeena subscribe dhahanaya gambaleelkana u furanaya haddaba gabar Soomaaliyeed oo sida la sheegay ahayd xaaskii hore ee taakeeye ayaa markii ugu horeysay iska soo duubtay muuqaal iyadoona afka furatay soona bandhigtay xogo iyo sira macluumaad ah oo aysan dadku ogsooneyn haddaba ninkan inta badan waxaa ka hadlayay wariyaal horey u yaqaanay hase yeeshee gabadhan oo la sheegay in ay nolol la soo wadaagtay ayaa waxa ay ka sheekeynaysaa marka hore taariikh nololeedka taakeeye iyo waxa ay ka taqaano waana tan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa yimid Canada intuu joogay gabar buu ku guursaday gabadha uu guursaday wuu xumeeyay wuu ka soo fakaday magicii iyo documentigii iyo informationkii uu Canada ku joogay buu inta qariyay wuxuu iska soo dhiibay Mareykan markuu iska soo dhiibay oo Mareykan yimid Soomaaliya banka imid buu ku sheekeeyay waan soo cararay been buu akhriyay waxa dhacday wuu yimid magicii markaas loo yaqaanay Soomaaliya uu maxaa la dhahaa horey ugu joogay oo uu bedelay oo Sufyaan ku bedelay ayuu haddana waxa halkaan lagu dhihi jiray San Diego magaciisa waxa la dhihi jiray Ilaahow beerkii baga aadan u dhiman San Diego waxa looga yaqaanay ninka taakeeya looga yaqaanay magaca la yiraahdo taakeeye ayaa looga yaqaanay taakeeyu joogay ninkaas xillina waxbuu baran jiray beenta Ilaah baa caayay Ilaah baana dadka yiri cadaab baan u doortay beenta ku sheekeeya odagayga subaxii hadduu nin arko waxa leeyahay war hebelow war islaantii uur ma leedahay fiiriya waa meeshan sheeko ka joogno magacaygu waa Firdawsi Axmed abaay xagee degan tahay abaay yaa tahay abaay meeqa caruura ku joogta haddaan xoogaa calooshu 9 bilood tahay oo xoogaa calooshu fakatay waxay leedahay abaayo uur miyaa leedahay meeqa bilood baa tahay waqti ninkaasi wuxuu baran jiray wuxuu baran jiray iskuul buu dhigan jiray waqtina wuxuu ka shaqayn jiray oo u ahaa bodyguard waxa la yiraahdo security guard ka la yiraahdo oo guryaha hor jooga oo xaafadaha hor jooga ayuu wuxuu ka ahaa xaafada University Avenue ee San Diego USA wiilkii waxbarashadiisa soo u watay halkaas uu uga ahaa shaqaale horjoogaha security guard ee xaafadaas uga ahaa iskuulkiisii waxa qasab noqotay in uu aado horta uu yiri waxaan noqonayaa security-ga Mareykan FBI baan ku darmanayaa de security-kana waxa qasab ah inaas luqadda Isbaanishka ku hadashid Spain buu aaday Spain markuu aaday marka hore intuu Spain aadin gabar wuxuu guursaday cayr ah oo ay akro oo wadaagan qabiilka uu yahay gabadhii uurba u yeelatay gabadhii arooskeedii markuu ka baxay wuu baxay wuxuu aaday maxaa la dhahaa Spain buu aaday 1 year buu ku maqnaa Spanish buu soo bartay wuu soo noqday mar kale gabadhan oo afka furatay ayaa soo bandhigtay sira kale oo aan la ogsooneyn oo ay kamid tahay sidii looga soo masaafiriyay dibadaha iyo sidii uu ku imaaday Kenya iyo xogo kale oo qarsoon kuwaas oo aysan warbaahinta ee dadka Soomaaliyeed ba aysan ogsooneyn haddaba bal aynu isla daawano mar kale muuqaalkeeda markuu soo noqday oo FBI-du hire garayn lahayd in America ayaa waxa la ogaaday in uu kooxaysi ku jiro
oo xisbigii la dhihi jiray xisbi islaamik ee maxaakiimta Soomaaliya ay lacag u aruurin jireen asaga iyo dhalinyaro badan ee ay jifo isku xigaan iyo nin sheegta qabaa'ilada daaroodka iyo qabiilo kaleba ninkii saas uu ahaa security FBI ga qofka background check markii loo diro masaajidada camera loogu xirtaa meel kasta loogu xirtaa ninkii waxa lagu soo ogaaday inuu fundraise u sameeyo ama lacago u suubiyo xisbigii xisbullaahi la dhihi jiray ee ka shaqayn jiray Soomaaliya ee maxaakiimta hameenoo madow baa la baxay master taakeeyo waayadii hameenoo madow lagu la baxay waa adeeg xabsiga lagu galiyay waa adeeg lagu soo bacdabay waa adeeg lagu soo karbaashay waa adeeg ku soo silcay waa la soo daayay wiilkii saasaha Sandiyaga markii la soo saayay masaajidkii laftarkiisa sirtiisa laga soo helay buu yimid hameenkii midnight baa la soo daayay salaadii subax buu masaajidkii ku soo tukaday masaajidkii markuu ku tukaday oo ka qodbeeyay ayaa waxa dhacday wadaadkii waraystay ee la dhihi jiray Maxamed Khadar taakeeyo hadalkayga dhageyso ama fad ama hafadin Soomaali uma baahna tafaraaru Soomaali uma baahna one been ah Soomaali uma baahna in dignity-geeda lagu ciyaaro ruufyaanimadii Mareykan ku geysay inaad la shaqaysid damacdid ku geysay inaad wiilasha Soomaaliyeed oo masaakiinta oo 500 oo wiil aqoonta laga jaro lacagta aad ugu dirtay dhiigii baa ka daba wareegaya adigu ninkii salaadii subax markuu tukaday boolis baa ugu yimid isku meesha la yiraahdo masjidkii ninkii saasa masaajidkii baa laga baxay xabsigii baa lagu laguma celinin waxa la yiri soo bax safaaraddan u soconaa sida aad ogtihiin ba waxaan leenahay anaga ciidamo safaaradda qaabilsan in America ninkii safaaradii baa la geeyay waxa lagu yiri adeer qalad baa lagu sii daayay kumana noqonaysid magaalada waa la jeebeeyay waa la kaxeeyay isku soo wada duub gabadhan ayaa sida la sheegay waxa ay tahay xaaskii hore ee taakeeye haddii ay arrintaasi rasmi tahay runtii waxa ay soo bandhigtay xogo iyo macluumaad sir oo aan horey loo ogsoonayn hase yeeshee waxaa wadnaa xaqiijinta arrintan waxaana mar walba jecelnahay inaan kiiska taakeeye aan sii wadno ilaa iyo inta meel looga gun gaarayo ama aan wariyaashaas haddii uu dilay cadaalad ugu helayno haddii isaga laga qaldan yahana aan cadaalad sii doono warbaahintu waa mid dhexdhexaad ah had iyo jeer haldoor miidiyana kuma sii jirto oo waa dhexdhexaad bulshada Soomaaliyeed ayay u dhaxayda hadaba daawadayaal si aysan ku dhaafin xogaha iyo macluumaadka halkan aan soo gelino haylaabin janaalka inaad subscribe dhahato inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabad galiyo mahadsanidin gabar buu ku guursaday gabadha uu guursaday wuu xumeeyay magicii markaas loo yaqaanay oo uu bedelay oo Sufyaan ku bedelay ayuu haddana Sandiyaga waxa looga yaqaanay ninka taakeeya looga yaqaanay beenta Ilaah baa caayay Ilaah baana dadka yiri cadaab baan u doortay beenta ku sheekeeya subaxii hadduu nin arko waxa leeyahay war hebelow war islaantii uur ma leedahay Soomaali sir ma kala qarsato waxna ma kala qarsadaan haddaan xoogaa calooshu 9 bilood tahay oo xoogaa calooshu fakatay waxay leedahay abaayo uur miyaa leedahay meeqa bilood baa tahay ugu dambeyn xaaskii hore ee taakeeyow afka furatay soona bandhigtay sira muddo badan qarsanaa oo aysan dadku waxba ku ogeyn haddaba gabadhan oo iska soo duubtay muuqaal ayaa soo dhigtay baraha bulshada waxaana la soo wadaagay qaybo kamid ah asxaabta inagu xiran haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin waxyaabaha siraha oo ay kashiftay iyo sidoo kale noloshii iyada iyo taakeeyo soo dhex martay fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u faafo bulshooyinka Soomaaliyeedna u gaaro ayna u ogaadaan xog badan oo ka dahsooneyd sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo janaalkeena subscribe dhahanaya gambaleelkana u furanaya haddaba gabar Soomaaliyeed oo sida la sheegay ahayd xaaskii hore ee taakeeye ayaa markii ugu horeysay iska soo duubtay muuqaal iyadoona afka furatay soona bandhigtay xogo iyo sira macluumaad ah oo aysan dadku ogsoonayn haddaba ninkan inta badan waxaa ka hadlayay wariyaal horey u yaqaanay hase yeeshee gabadhan oo la sheegay in ay nolol la soo wadaagtay ayaa waxa ay ka sheekeynaysaa marka hore taariikh nololeedka taakeeye iyo waxa ay ka taqaano waana tan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa yimid Canada intuu joogay
gabar buu ku guursaday gabadha uu guursaday wuu xumeeyey wuu ka soo fakaday magacii iyo documentigii iyo informationkii uu Canada ku joogay buu inta qariyay wuxuu iska soo dhiibay Mareykan markuu iska soo dhiibay oo Mareykan yimid Soomaaliya banka imid buu ku sheekeeyay waa soo cararay been buu akhriyay waxaa dhacday wuu yimid magacii markaas loo yaqaanay Soomaaliya uu maxaa la dhahaa horay ugu joogay oo uu bedelay oo Sufyaan ku bedelay ayuu haddana waxaa halkan lagu dhihi jiray San Diego magaciisa waxaa la dhihi jiray ilaahow beerkii baga aadan u dhiman San Diego waxaa looga yaqaanay ninka taakeeya looga yaqaanay magaca la yiraahdo taakeeye ayaa looga yaqaanay taakeeyuu joogay ninkaas xillina waxbuu baran jiray beenta ilaah baa caayay ilaah baana dadka yiri cadaab baan u doortay beenta ku sheekeeya odagayga subaxii hadduu nin arko waxaa leeyahay war hebelow war islaantii uur ma leedaha fiiriya waa meeshaan sheeko ka joogno magacaygu waa Firdawsi Axmed abbaay xagee degan tahay abbaay yaa tahay abbaay meeqa caruura ku joogta haddaan xoogaa calooshu 9 bilood tahay oo xoogaa calooshii fakatay waxay leedahay abbaayo uur miyaa leedahay meeqa bilood baa tahay waqti ninkaasi wuxuu baran jiray iskuul buu dhigan jiray waqtina wuxuu ka shaqayn jiray oo u ahaa bodyguard waxa la yiraahdo security guard ka la yiraahdo oo guryaha hor jooga oo xaafadaha hor jooga ayuu wuxuu ka ahaa xaafada University Avenue ee San Diego USA wiilkii waxbarashadiisa soo u watay halkaas uu uga ahaa shaqaalaha hor joogaha security guard ee xaafadaas uu uga ahaa iskuulkiisii waxaa qasab noqotay in uu aado horta uu yiri waxaan noqonayaa security-ga Mareykan FBI baan ku darmanayaa de security-kana waxaa qasab ah inaad luqadda Isbaanishka ku hadashid Spain buu aaday Spain markuu aaday marka hore intuu Spain aadin gabar wuxuu guursaday cayr ah oo ay magaca koro oo wadaagaan qabiilka uu yahay gabadhii uurba u yeelatay gabadhii arooskeedii markuu ka baxay wuu baxay wuxuu aaday maxaa la dhahaa Spain buu aaday 1 year buu ku maqnaa Spanish buu soo bartay wuu soo noqday mar kale gabadhan oo afka furatay ayaa soo bandhigtay siro kale oo aan la ogsooneyn oo ay ka mid tahay sidii looga soo masaafiriyay dibadaha iyo sidii uu ku imaaday Kenya iyo xogo kale oo qarsoon kuwaas oo aysan warbaahinta ee dadka Soomaaliyeed aysan ogsooneyn haddaba bal aynu isla daawano mar kale muuqaalkeeda markuu soo noqday oo FBI-du hire garayn lahayd in America ayaa waxaa la ogaaday in uu kooxaysi ku jiro oo xisbigii la dhihi jiray xisbi Islaamic ee maxaakiimta Soomaaliya ay lacag u aruurin jireen asaga iyo dhalinyaro badan ee ay jifo isku xigaan iyo nin sheegta qabaa'ilada daaroodka iyo qabiilo kaleba ninkii saas uu ahaa security FBI-ga qofka background check markii loo diro masaajidada camera loogu xirtaa meel kasta loogu xirtaa ninkii waxaa lagu soo ogaaday inuu fundraise u sameeyo ama lacago u suubiyo xisbigii Xisbullaahi la dhihi jiray ee ka shaqayn jiray Soomaaliya ee maxaakiimta hameenoo madow baa la baxay master taakeeyo waayadii hameenoo madow lagu baxay waa adeegii xabsiga lagu gariyay waa adigu lagu soo bacdabay waa adigu lagu soo karbaashay waa adigu ku soo silcay waa la soo daayay wiilkii saas ahaa San Diego markii la soo saayay masaajidkii laftarkiisa sirtiisa laga soo helay buu yimid hameenkii midnight baa la soo daayay salaadii subax buu masaajidkii ku soo tukaday masaajidkii markuu ku tukaday oo ka qodbeeyay ayaa waxaa dhacday wadaadkii waraystay ee la dhihi jiray Maxamed Khadar taakeeyow hadalkayga dhageyso ama fad ama hafadi Soomaali uma baahna tafaraaruq Soomaali uma baahna one been ah Soomaali uma baahna in dignity-geeda lagu ciyaaro ruufyaanimadii Mareykan ku geysay inaad la shaqaysid damacdid ku geysay inaad wiilasha Soomaaliyeed oo masaakiinta oo 500 oo wiil aad uunta laga jaro lacagta aad ugu dirtay dhiigii baa ka daba wareegaya
adigu ninkii salaadii subax markuu tukaday boolis baa ugu yimid isku meesha la yiraahdo masjidkii ninkii saasaa masaajidkii baa lagala baxay xabsigii baa lagu xabsigii laguma celinin waxaa la yiri soo bax safaaraddan u soconaa sida aad ogtihiin ba waxaan leenahay annaga ciidamo safaaradda qaabilsan in America ninkii safaaradii baa la geeyay waxaa lagu yiri adeer qalad baa lagu sii daayay kumana noqonaysid magaalada waa la jeebeeyay waa la kaxeeyay isku soo wada duub gabadhan ayaa sida la sheegay waxa ay tahay xaaskii hore ee taakaye haddii ay arrintaasi rasmi tahay runtii waxa ay soo bandhigtay xogo iyo macluumaad sir oo aan horey loo ogsoonin hase yeeshee waxaa wadnaa xaqiijinta arrintan waxaana mar walba jecelnahay inaan kiiska taakaye aan sii wadno ilaa iyo inta meel looga gun gaarayo ama aan wariyaashaas haddii uu dilay cadaalad ugu helayno haddii isaga laga qaldan yahana aan cadaalad sii doono warbaahintu waa mid dhexdhexaad ah had iyo jeer haldoor miidiyana kuma sii jirto oo waa dhexdhexaad bulshada Soomaaliyeed ayayna u dhaxayda haddaba daawadayaal si aysan ku dhaafin xogaha iyo macluumaadka halkan aan soo gelino haylaabin janaalka inaan subscribe dhahato inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabad galiyo mahadsanidin gabar buu ku guursaday gabadha uu guursaday wuu xumeeyay magicii markaas loo yaqaanay oo uu bedelay oo Sufyaan ku bedelay ayuu haddana San Diego waxa looga yaqaanay ninka taakeeya looga yaqaanay beenta Ilaah baa caayay Ilaah baana dadka yiri cadaab baan u doortay beenta ku sheekeeya subaxii hadduu nin arko waxa leeyahay war hebelow war islaantii uur ma leedahay Soomaali sir ma kala qarsato waxna ma kala qarsadaan haddaan xoogaa calooshu 9 bilood tahay oo xoogaa calooshii fakatay waxay leedahay abaayo uur miyaa leedahay meeqa bilood baa tahay ugu dambayn xaaskii hore ee taakayow afka furatay soona bandhigtay sira muddo badan qarsanaa oo aysan dadku waxba ku ogeyn haddaba gabadhan oo iska soo duubtay muuqaal ayaa soo dhigtay baraha bulshada waxaana la soo wadaagay qaybo kamid ah asxaabta inagu xiran haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin waxyaabaha siraha oo ay kashiftay iyo sidoo kale noloshii iyada iyo taakayo soo dhex martay fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u faafo bulshooyinka Soomaaliyeedna u gaaro ayna u ogaadaan xog badan oo ka dahsooneyd sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo janaalkeena subscribe dhahanaya gambaleelkana u furanaya haddaba gabar Soomaaliyeed oo sida la sheegay ahayd xaaskii hore ee taakaye ayaa markii ugu horeysay iska soo duubtay muuqaal iyadoona afka furatay soona bandhigtay xogo iyo sira macluumaad ah oo aysan dadku ogsooneyn haddaba ninkan inta badan waxaa ka hadlayay wariyaal horey u yaqaanay hase yeeshee gabadhan oo la sheegay in ay nolol la soo wadaagtay ayaa waxa ay ka sheekeynaysaa marka hore taariikh nololeedka taakaye iyo waxa ay ka taqaano waana tan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa yimid Canada intuu joogay gabar buu ku guursaday gabadha uu guursaday wuu xumeeyay wuu ka soo fakaday magicii iyo documentigii iyo informationkii uu Canada ku joogay buu inta qariyay wuxuu iska soo dhiibay Mareykan markuu iska soo dhiibay oo Mareykan yimid Soomaaliya baan ka imid buu ku sheekeeyay waan soo cararay been buu akhriyay waxaa dhacday wuu yimid magicii markaas loo yaqaanay Soomaaliya uu maxaa la dhahaa horey ugu joogay oo uu bedelay oo Sufyaan ku bedelay ayuu haddana waxa halkan lagu dhihi jiray San Diego magaciisa waxa la dhihi jiray Ilaahow beerkii baga aadan u dhiman San Diego waxa looga yaqaanay ninka taakeeya looga yaqaanay magaca la yiraahdo taakeeye ayaa looga yaqaanay taakeeyu joogay ninkaas xillina waxbuu baran jiray beenta Ilaah baa caayay Ilaah baana dadka yiri cadaab baan u doortay beenta ku sheekeeya odagayga subaxii hadduu nin arko waxa leeyahay war hebelow war islaantii uur ma leedahay fiiriya waa meeshaan sheeko ka joogno magacaygu waa Firdawsi Axmed abaay xagee degan tahay abaay yaa tahay abaay meeqa caruura ku joogta haddaan xoogaa calooshu 9 bilood tahay oo xoogaa calooshii fakatay waxay leedahay abaayo uur miyaa leedahay meeqa bilood baa tahay waqti ninkaasi wuxuu baran jiray wuxuu baran jiray iskuul buu dhigan jiray waqtina wuxuu ka shaqayn jiray oo u ahaa bodyguard waxa la yiraahdo security guard ka la yiraahdo oo guryaha hor jooga oo xaafadaha hor jooga ayuu wuxuu ka ahaa xaafada University Avenue ee San Diego USA wiilkii waxbarashadiisa soo u watay halkaas uu uga ahaa shaqaale
aha horjoogaha security guard ee xaafadaas uga ahaa iskuulkiisii waxaa qasab noqotay in uu aado horta uu yiri waxaan noqonayaa security-ga Mareykanka FBI baan ku darmanayaa de security-kana waxaa qasab ah inaad luqadda Isbaanishka ku hadashid Spain buu aaday Spain markuu aaday marka hore intuu Spain aadin gabar wuxuu guursaday cayr ah oo ay magac karo oo wadaagaan qabiilka uu yahay gabadhii uurba u yeelatay gabadhii arooskeedii markuu ka baxay wuu baxay wuxuu aaday maxaa la dhahaa Spain buu aaday 1 year buu ku maqnaa Spanish buu soo bartay wuu soo noqday mar kale gabadhan oo afka furatay ayaa soo bandhigtay siro kale oo aan la ogsooneyn oo ay ka mid tahay sidii looga soo masaafiriyay dibadaha iyo sidii uu ku imaaday Kenya iyo xogo kale oo qarsoon kuwaas oo aysan warbaahinta ee dadka Soomaaliyeed aysan ogsooneyn haddaba bal aynu isla daawano mar kale muuqaalkeeda markuu soo noqday oo FBI-du hire garayn lahayd in America ayaa waxaa la ogaaday in uu kooxaysi ku jiro oo xisbigii la dhihi jiray xisbi Islaamic ee maxaakiimta Soomaaliya ay lacag u aruurin jireen asaga iyo dhalinyaro badan ee ay jifo isku xigaan iyo nin sheegta qabaa'ilada daaroodka iyo qabiilo kaleba ninkii saas uu ahaa security FBI-ga qofka background check markii loo diro masaajidada camera loogu xirtaa meel kasta loogu xirtaa ninkii waxaa lagu soo ogaaday inuu fundraise u sameeyo ama lacago u suubiyo xisbigii Xisbullaahi la dhihi jiray ee ka shaqayn jiray Soomaaliya ee maxaakiimta hameenoo madow baa la baxay master taakeeyo waayadii hameenoo madow lagu la baxay waa adeegii xabsiga lagu gariyay waa adeegii lagu soo bacdabay waa adeegii lagu soo karbaashay waa adeegii ku soo silcay waa la soo daayay wiilkii saas ahaa San Diego markii la soo saayay masaajidkii laftirkiisa sirtiisa laga soo helay buu yimid hameenkii midnight baa la soo daayay salaadii subax buu masaajidkii ku soo tukaday masaajidkii markuu ku tukaday oo ka qodbeeyay ayaa waxaa dhacday wadaadkii waraystay ee la dhihi jiray Maxamed Khadar taakeeyow hadalkayga dhageyso ama fad ama hafadi Soomaali uma baahna tafaraaruq Soomaali uma baahna one been ah Soomaali uma baahna in dignity-geeda lagu ciyaaro ruufyaanimadii Mareykan kuu geysay inaad la shaqaysid damacdid kuu geysay inaad wiilasha Soomaaliyeed oo masaakiinta oo 500 oo wiil aduunta laga jaro lacagta aad ugu dirtay dhiigii baa ka daba wareegaya adigu ninkii salaadii subax markuu tukaday boolis baa ugu yimid isku meesha la yiraahdo masjidkii ninkii saasa masaajidkii baa lagala baxay xabsigii baa xabsigii laguma celinin waxa la yiri soo bax safaaraddan u soconaa sida aad ogtihiin ba waxaan leenahay anaga ciidamo safaaradda qaabilsan in America ninkii safaaradii baa la geeyay waxa lagu yiri adeer qalad baa lagu sii daayay kumana noqonaysid magaalada waa la jeebeeyay waa la kaxeeyay isku soo wada duub gabadhan ayaa sida la sheegay waxa ay tahay xaaskii hore ee Taakeeye haddii ay arrintaasi rasmi tahay runtii waxa ay soo bandhigtay xogo iyo macluumaad sir oo aan horey loo ogsooneyn hase yeeshee waxaa wadnaa xaqiijinta arrintan waxaana mar walba jecelnahay inaan kiiska Taakeeye aan sii wadno ilaa iyo inta meel looga gun gaarayo ama aan wariyaashaas haddii uu dilay cadaalad ugu helayno haddii isaga laga qaldan yahana aan cadaalad sii doono warbaahintu waa mid dhexdhexaad ah had iyo jeer Haldoor Media kuma sii jirto oo waa dhexdhexaad bulshada Soomaaliyeed ayay u dhaxayda haddaba daawadayaal si aysan ku dhaafin xogaha iyo macluumaadka halkan aan soo gelino haylaabin janaalka inaad subscribe dhahato inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabad galiyo mahadsanidin